السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماما ساعتها ماما سحنوني آدي آد بانكو سلام يا عاوة وحان تاغنا هاي وعان لا هاي فيفا مدحوينة محمد عبد الله الفرماتشو وحان لنا هاي سوى نقشو وعن شعبك الصومالياتنا وحان لنا وحان وجهد نابع سوى نقشو دي يقوشي مدحوينة محمد عبد الله الفرماتشو يا كسو هرشيدا يا ليه كرمية إلهي موقي فكر كاغو محوية horta anigu waa salaamaya ummadda meesha ku jirta iyo adiga halgamaaga aba Allah xafido ummadda Soomaali weyn inta qalbigoodu xun yahay iyo inta qalbigoodu wanaagsan yahay waa Soomaali Ilaahay soo wada hadeeyo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxaan ku furahayaa anigu heesaha iskuma fiicnin hooyooyinka xoogaa mashxarad iyo waxba lagu ogaa marka waxaan leeyahay ilili ma garad صح ما شاء الله انت اصلا naga badan marka horta ilaahay ma ogiyo aadana hortaagan ma jiro صح ma garad صح intii laga rabay nin madaxweyne ah oo caadil ah ilaahay baa caadil ah madaxweyne cadaalad ah caadil ilaahay baa iska leh cadaalad ah intii laga rabay oo waliba ayadoo gorayo waaqlayntu socoto oo dhurwaaga iyo dawacada iyo abeesada iyo ilaahay ha u naxariisto ugaas khaliifa wuxuu yiri ilaahu janna firdawsa adeerka ugu bishaare wuxuu yiri farmaajo waa lagu doorto waana ku duceeynaa laakiin ma aan abeesooyin iyo qodxa yururu yiri ma garan صح waxaad ogeyd oo gorayo waaqlayn dhacaysay iyo dhurwaa iyo abeesad dinaahiinaysay iyo balaayada halaaqoonaysta iyo midka hogga qodanaya iyo midka geela qalanaya iyo midka dambiisha sii wato sii socda iyo ka bacda wato meeraysanaya iyo ka gaalka hoos galgalanaya waxaad ogeyd oo socday buu wuxuu ku yiri bullaha iska taqdo waxaan kalmadaas ka bartay xafidullah sheekh cabdi xirsi bullaha iska taqdo hawshiisii watay ciidankii Soomaaliya libaaxyadii Afrika oo aan ku seexano oo ku soo toosno oo mar alla markii ay gaardiyayaan saajir racadu nooga yaacdo yu horta noo sameeyay صح alxamdulillah 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 ilaahay baa kun iyo kowjar mahaduu sugnaata gabdhaha yagii iyo wiilashiyadii dariiqyada huuraala Kenyatta iyo nimankii dilmaanyada lahaa iyo kaneecada iyo muxuu ahaa injirta lahaa oo yahaadhigti waxaad ogeyd oo madaxtooyada iyada jiifay waxaad ogeyd oo maamul goboleedyada xafiisyada iyo guryaha xunxunka oo musqulaha ku dhex lahaa waxaas clean bay noqdeen hadda maanta habar injir leh oo dhex fadhida Soomaaliya ma taalo ما شاء الله هذا ما قرأت ولا لقى كلين قري ولا لقى حاقد ولا buufiyaan kurisida dilmaanyadii baa loo buufiya maalinkii la doortay raggii yahaadhigta ahaa iyo ingiriiskii iyo kuwii ruufyaanada xalana joogay waad ogeyd afkii baa saa u soo wada dhacay indhii foolxumadooda sawiradaas in la soo saaraan rabaa sawiradaas la soo saaro sababtu waa sanad guuradii ma garan أنا كابلان قاضي sanad guuradii shanaad weeye hooyooyin ka Soomaaliyeed ana u ballan qaaday inaan soo qufo waa ballan wakaas ma garan صح waxa weeye marka sawirkaas this picture buu yiri nin Faransiis other than wars nacamti picturekaas wuxuu ahaa mucjiso idaacada Faransiiska wallahi kelmad kale inay soo oranka farmaajo la doortay this picture other than wars kelmad waaba ka weeyay picturekan nacamti sida wajiyadoodu noqdeen iyo siday foolxumadu uga muuqatay iyo sida qalbi jabku ugu dhacay argagax ilaahay idinku baa naguma kii soo celiyo haddana rag baa u gorayo waaqlaynaya inay soo noqdaan insha Allah maya baan leenahay haddaan ummadda Soomaaliyeed nahay ciidankaas halkaas u dhigay wuxuu soo ceshay hawadii Soomaaliya oo Uhuru Kenyatta iyo habriisu anjeerada ku duftaan صح oo banaanka soo dhiga asaga iyo ragii wasiirada ahaa oo la shaqeynayay asaga iyo ragii la shaqeynayay oo mudana Omar ugu horeeyo xafidullah wiilka yarka oo dhalinyarada weliga qalbigiisu isbedelay Soomaaliyeed madamiirkaad ka liidataan Soomaaliyeed madamiirkaad ka liidataan
ma damiirka ka dhimateen aaway nabad iyo nolol barnaamijka naga sheergareeya oo meel dheer gaarsiiya oo dabaaldega oo qalbigiina u sheega madaxweynaha sharafta leh inuu idiin soo noqday annagu taasaan idiin sheegaynaa sheergareeya bahalka aad u sheergareeya oo meel dheer gaarsiiya oo lifeka iyo lifeta la dhaca meel dheer geeya ku soco maama saxnuuni waxay dhihi jireen gabdhaha buraanbura ikacay boqolkuu ii tegay nabad iyo nolol maanta la rabaa dhiigu boqolka inuu tago sheer kun waa inay maanta gaartaa kun iyo biyu ma garan صح sheergareeya bahasha dhulka ka qaada kor u qaada waa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaynu ka hadlaynaa uhuru badhaadha maaha buubuubow ma aha waxaynu ka hadlaynaa waa xafidullah soo noqoshada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya hadday soomaalinimo kugu jirto iyo sharaf barnaamijkaan iga sheergaree meel dheer iga gaarsii waan dabaaldegaya anigu anaa kuu sheegaya hadda runta kuu sheegaya ama oy ama iska dhaaf anigu waxaan ku jiraa dabaaldeg sababtoo ah wax ila tartamaya ma hayaba yaa ila tartami karaa ninka ila tartami karaa waa kuma madaxweynaha loo waayey sheergareeya bahasha ku soco there is no one ma garat صح ninka la yiraahdo Omar maanta halkaanaan ka salaamaynaa nabad iyo nolol haddaan nahay mudane Omar wiilkii hawada haystay oo maalinkii dhawaytana la lahaa madoobe maanta social media waxay dhex wareegaysay Axmed Madoobe oo nimankii yahaadhigta ahayd oo ruufyaanada ahayd oo kilalka ka yimid yiri cod ka soo duuba asagoo la hal xoreeyo Bu'aale asagoo la hal xoreeyo Salagle asagoo la hal xoreeyo muxuu ahaa jirib iyo jamaame asagoo yiri hal xoreeyo ayuu ka soo duubay cod inadeerkiis jaajuus soo gabdhaha gubi jiray gabdhaha asaa goyn jiray maama saxnuuni waan hayaa videogaas haddaan rabaa inaan soo daayo صح noo soo daa allah ya ciise Omar halkaasaa nabad iyo nolol haddaan nahay taash baan u saarna taash waa ninka codkiisa iyo kartidiisu wali aysan isbedelin waa ninka madaxweynaha intaa la safnaa oo hawada wax ka soo celiyay waa u mahad celinaynaa taariikhda ana ku xusaysa mudane Omarow anoo hooyadii nabad iyo nolol saxnuuni cali iyo halgamaagii xildhibaankii nabad iyo nolol dacar nabad iyo nolol oo maanta nabad iyo nolol oo dhan ay nala jirto waxaan ku leenahay xafidullah ilaahay ha ku xafido halka ka wad ha isbedelin isagoo wasiirnimadii ka tagay buu dawladda garab taagan yahay oo uusan madaxweynihiisa kelmad xun weligiis u quurin ninkaas iyo nin lamid ah waxaan rabnaa inuu yahay hanti qaran asaga iyo ninka la yiraahdo Jamaal Maxamed Xasan ninka la yiraahdo mudane Bayle ninka ah xafidullah financialka Soomaaliya waa ragga aabayaasha Soomaaliya u ah maxamed cabdullaahi farmaajo hadduu soo noqdaan raggaas weynaysa wasiirnimadooda ka dhicin ummadda Soomaalida beerkooda iyo bagooda ay harsadeen raggaas ninka iska ilaaliyay Soomaaliya hadal xanaf la dhexdeeda inuu ku dhaho ninka iska ilaaliyay wixii loo diray inuu luuqluuqiyo u istaago si cad u sameeyay dadkaas mahad celin bay naga mudan yihiin waa shukri calaa waajib waxay qabteen laakiin mahad celin bay naga mudan yihiin halkaasaan uga baxaya mudane Omar taariikhda ku qortaan leeya mudane adiga inta kula midka ah cod lagaa duubay iyo habar ruufyaan warayso suuqa la wareegaysana waxay ka qaadahayaan male Omar baa tahay Jubbaland baad u dhalatay Soomaaliya aad u dhalatay ka xoree dhilmaayada kuukaayada ah iyo yahaadhigta Axmed Madoobe soo dirsatay ka kaliin garay anaguna ku garab taagana waxaadna furtaa maan leeyahay Omarow lacagtu lagu xoreyn lahaa iyo qasnadii muxuu ahaa bangiga lagu xoreyn lahaa ha noo soo sheega annaga lacagta diraynay haddaan nabad iyo nolol leh waa garab taagana waa la bixinayaa waa bixis halkaasaan ugu xoreynayo ha noo soo sheego meel alla meeshaan lacag ku shubi lahayn ha noo soo diro waa bixis runtii wixii Jubbaland lagu xoreynayo waa bixis shacabka Soomaaliyeed baa bixinaya ummadda Soomaaliyeed baa diyaar waa inay asagiyo bal ninkii ummadda Soomaaliyeed hor istaagi kara asagiyo nacam Omar bay la jirtaa taas asagaan ka war sugaynaa waa ballan inaan katiinadaha iyaga u furno nin raga hadduu yahay ha noo soo furo akoonti aan lacagaha ku dirno hana la xoreeyo Jubbaland waa gobol qaniya weeye laakiin waxa ku habsaday qaxooti aan dhaqan lahayn aan aqoonin wadanka waa ninka gubahaya geedbihi cambaha Axmed Madoobe maaha ninka gubahaya
ودبقودي ما مسحنوني وأكو سلام يا ضد كنا وابدين أبي طبعا أنا هدان ناي هاي شوف بلان هدان ناي شوف هدان مر شوف بلان كسر قد حضر دي بام بلابين صح وحي هسبا وحي هاي دحين رجنا وله aad baan u xatreynaynaa caawa ma garan ما شاء الله هلا حتريو لما هيو قف كله أو لو دور صدو أما لو بدل لما هيو marka Omar yes bidig loo kaco balan hal xoreeyo waa xoreyn jaajuus cod duuba iyo jaajuus gabdhooda naasaha ka soo jaray midna u joojin mayno Omar oo qasnada noofur halkaas aan uga gudbay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laba kalmadood kale ciidankii buu dhisa wuxuu hawadii Soomaaliya soo celiyay ummadii Soomaaliyeed oo xabsiyada lagu wada kuftaday buu soo ceshay wuxuu soo ceshay kuwa rajabeelay oo awlaad iyo xaasaskii isqabay ay kala raja dhigeen oo naagoodii la gursaday iyagoo nool keen xafidullah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qasnadii Soomaaliya ilaa maalinkuu yimid ayadoo baranbara ku jirto yimid ilaa maalinkuu yimid qasnadeedii saas u circiiraysa gaaladii 2 sano ka hor bay lacagtii xataa ay ku kabi jirtay wadanka iyay goysay ilaahay baaba noo soo buuxshay halkaas bay maraysaa halkaa ciidanka iyaga mushaarkiisu 25 ka la qaata baarlamaanka iyaga ilaa hadda dawladii oo leeyahay waa dhacdiyo waa ku meelgaa mushaarkoodii waa banaanka ilaa hadda shaqaaliin mushaarkoodii waa banaanka xamar waa aragtay nalkaad aragtay iyo nibcadaad aragtaa ka daaran laamiga laga dhisay xamar laga dhisay oo laga qaaday afgooyuu jooga kii kale jawhar buu sii maraya agteeda balcad buu maraya jawhar buuna gaaraya jawhar إلا كحل الشيقال أنا بقول برديه إلا كحل الشيقال ما لقدس إلا كح شيقال ما لقدس وهذا ركته ورر كح شيقال كمان سيبتين سيدي يوم مساجد قليا نكاس على سؤال شو ما شاء الله ما شاء الله نكاس على سؤال يو عيدا كيبورد طي هانتيري بورد طي أرميه دبدو بنان كدقة بنانك قال يا قالوا يا كم من أرميه دبيه مسوا فرقين كرو الكاسان إذا كجبها هيا you name it وحلا سوكو بي كربا ما محمد عبدالله فرماجو iyo kamaneed kala shaqeeya laakiin ninkan hay cado baahan anigu waxaan jeclaan lahaa inta la socotay isaga xabsiga in la dhigo waxaan inta ku dardaarmaya wasaaradda waxbarashada ninka wasaaradda waxbarashada jooga hebel carab la leeyahay 2 isbitaal oo loo dhisay ummadda Muqdisho degan wuxuu ku haystaa dawladda federaalka iyo Umar Finisho isla socda labadaa isbitaal dameeri iyo midka kale waa in banaanka laga dhigaa ninkaas gobolka Gado ka soo jeeda wuxuu ka soo jeedaa gobolka Gado waligi biyo uma dhaamin waligi biyo uma dhaamin waliba wuxuu isku dayayaa dadka ka soo jeeda gobolkaas oo raba baarlamaanka inay ku soo baxeen gobolka Gado inuu cagta saaro oo ninka hay'ada u adeegsado baahare u adeegsado waxaan codsanayaa gobolka dadka ka soo jeeda inaan ninkaas hebel carab la leeyahay inaan kursiga xildhibaannimada oo beesha direed leedahay inaan la siin baan ku codsanayaa hadday siiyaan maalinta qiyaamahan haysana gadoo dhan albaabadaan u xidhayna ma sha Allah halkaasaan kala dardaarmaya dadka Soomaalida oo nabad iyo nolol hal doorto xildhibaanada soo baxaya ilaahay baan idin ku dhaarinaynaa midka ciidanka noo dhisaya oo shaqaalaha mushaarka siinaya oo jidadka noo dhisaya oo shidaalka noo soo saaraya noo doorto haddii kala habaar iyo asmaan la fariisanaynaa salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مدان وحان ربنا إنay taariikh u noqoto xildhibaanada la dooran doono ay u sheer gareeyaan shacabka Soomaaliyeed qofka ay rabaan marka waxaan idinka codsanaynaa inaad soo qortaan FIFA madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo insha Allah assalaamu calaykum caawa waa xatro السلام waa ku salaamaya meesha ka soo hadlayso iyo magacaaga waxaad soo wacday TV xisbiga qabyaaladiid waxaa la yidhaahdaa maxamed xaaji baahilaawe waxaan ka soo hadlayaa magaalada Garowe waan gartay maxaad ku darsanaysaa barnaamijka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu soo noqonayo mashaki baa kaaga jira ma wax shaki ma jiraan anigu waxaan ahay nin reer Buuhoodla marka hore marka ku soo walaalkay waxaan walaal waa ku soconayaa berigii uu yimid Puntland ayaan gabayaan u tiriyay baan caawa halkan ka marinayaa ما شاء الله قصة سودا أديكو سوق قابرة يا وشعبك الصوماليين عاو وحترو حربنا إنا سوق رمنا
dadka caqliga saaxiibka u ah inay sheergarayaan barnaamijkan oo ay ogaadaan qofka madaxweynenimo ugu qalma dalka Soomaaliya xildhibaanada la dooran caawa waxaan rabnaa markay daawadaan inay meel ay u socdeen farmaajo u leexdaan gabayga ku siidaa ku soco sanadahan bawaataana saraysiinka maansada ee sahwi igu kordhaa ibaday inaan gabay sameeyaa cadceedda samad soo diree bari ka soo saaray sacabada in lagu qariyo waa waxaan sugnaanayne adigaa socdaal dheer ku maray waddanka Soomaaliya samada guudkeeda iyo kuma dhibaan siiga bood leeyahay sama wada socdaalkaagi bari waa la saacideeyay sacabada aday ku tumeen kuna salaameen ciidamada saraakiisha ee sugay ammaankeena adigaa bilada siiyay iyo saanadii qalabe siyaasurku cadaaya tuhoo dunida saameeye farmaajo noo tali bulshada way ku saacidiyeen afartaas sameeyay haddaan hore u sii dhaafo mayay subaxi horaadtiiyo naacawdu sidee waxaa tahay gusaameelan iyo sagal barwaaqeede dadku nimu siman iyo haatahoo saamaxaad badane waxaa tahay adoon saalixo saajicoo gobehe saldanadaada madaxweyne waa mid aan sal guurayne ma cid baan la simi dowladdani waa sabool kuriye waxba gabaygiyuu ila saldheeraanne aniguna ducaan kuu sidaa abid sarreeyowe subuxu ilaah dunida urshee suurta la afuufo suxul eebbahay kuma dilo sama kuwaarowe saranseer ilaah kuma badiyo waxaad salugtaaye sulmi iyo haraad kuma marshiyo suran ciidiyoode sumuraha cadaabtana rabbiyow kaa silsiladeeye cudurrada wax saaqa iyo ilaah silaca kaa haye samihiyo wanaaggana ilaah midigta kaa siiye jannadii samaar iyo ka guro soor macaan badane asxaabtii la noolow iyo safkii nebiyadeeniye waxba gabaygu ila saldheeraane farmaajo noo tali bulshada way ku saacidiye sool sanaag iyo cayn haddeer way ku sugayaane aad iyo aad baad umahadsan tahay xildhibaankayga qaaliga gabayga waan ka baxay waa ninkaan maxaa ahaa jeegarawa jooga bulshada Soomaaliyeedna dhegeysanaysan aad baan u salaamayaa inta uma ku darsanayaa ما شاء الله نقبضن انت عشان نقبضن ninkaan sheer garayn ama like saarin naga mid maaha isaga bax soomaalinimada isaga bax soomaalinimada isaga bax dadnimada isaga bax dulli baa tahay raba inuu dulli ku noolaade hore u dhaqaaq adeer waa ku salaamaya waad iska jari kartaa aad iyo aad bay gabaygaaga ugu diirsadeen shacab weynaha Soomaaliyeed dhammaantood meel walba dunida dacaladeeda ka joogaan waana kuugu hambalyeynayaan ma sha Allah guuleyso soo dhawo walaalkay insha Allah هذه أدبا كو سلامة يا اسكتشر لمانك يغالي سيدو كلاي أيه السلام عليكم وعليكم السلام دحرينا دري ورن وان في عنا ولا شيء هذه أن عاوة أن وحن ربنا إنا نكهذا لنا مشكي بقى كاجتشرا سو مقشدة مدحوين محمد عبد الله فرماجو هدو كاجتشرا نصب مايا شك إيجا ما تشرو إن شاء الله صلاة كستان تكوننا وودو عينين وصون نقضو أديكو سو كوبيا محات رأيي كنت رسمهاyd oo dhihi lahayd xildhibaanada soo socda xildhibaanada waxaan ka rajaynaa haday Soomaalinimo iyo maartay ay mas'uul laga yihiin hadaysan mas'uul laga ahayn haday qowlistihiin meesha anu kumaana darin laakiin haday mas'uul laga yihiin oo Soomaalinimada u heelinayaan farmaajo ugu shubaan qowleysatadana maxaan ku dhahaa daaqada ka tuuraan midda labaad oo aan gaarsiinayo maxaan ku dhahaa meel qadkaadana aan ka sheegayo rooble iyo markuu ay laboor ka soo degay hal xiro ma sha Allah rooble waxaan ka codsanahay maxaan ku dhahaayay nisa waxaan ka codsanahay inay baaraan mar alla markuu soo gal inay nagu sideynin fiiri abayo horta waxa la yiri nin dawaca weg sidiisaba lama daba cararo wax dawaca weg hadaad aragto garan weydo lama daba cararo
ninkan haddii la daba cararo oo la yidhaahdo waa la xiraa walaxaa loo samayhaa magacaa loo yeelaa waxaa la tusinaa dalkan iyo dadkan inuusan waxba ka qaadi karin isagaa sharafta iyo karaamada iyo haybadda isaga ciyaaray xuquuqul insaankuu xaggaa u dhaafay wax soconayoo shaqaynayana wax walbuu sameeyo farmaajo guul buu ka qaadaa nabad iyo nololna guul bay ka qaadaa hadda waxaa caddaynaya soo noqoshada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo fiiri waxaa caddaynaya soo noqoshada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo anigu aan kuu leeyahay wuu soo noqonayaa oo caddaynta u ah inaan la haynin shaksi dhaama maxaa la yidhi mayd maxaa u dambeeyey midka la sii sido ra-iisul wasaaraha u dambeeyey mayd waa mayd socda caawa wuxuu ka qayb galayaa shir uu ku liito oo uu daciif ku yahay oo uu dhintay oo uusan wax astaana iyo qarannimo iyo sharaf midna uusan waxba ku lahayn oo uu ku dulaysan yahay isagaa dulaysan waxba la xidhi maayo iska imo adeer welcome to muqdisho ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka dhacay nolosha wuxuu ka dhacay ama qarannimadanadii sharaftanadii qaymahanagii qaybkaan lahayn ku tuntay maalinka uhura kayato kaadida iska dhaqi oo macawista xuro maalintaas oo ari xaggee ka dhintay uhura kayato maalinta uu kacawis u xiraayay maalintaas oo ari xaggee ka dhintay koleetaba صح لكن waxa uu wato huwan yahay anagu shakhsi ahaan shaqo ku meel laakiin magaca uu huwan yahay iyo masaabka uu huwan yahay magaciisa Soomaaliya huwan yahay damiirta Soomaaliya huwan yahay wuxuu huwan yahay magacii ra'iisul wasaare meeshu joogay waa taqaanaa wadan dhan magaciisa huwan yahay fiiri abaya haddii loo haayo mas-uuliyad hadday u og yihiin inuu ra'iisul wasaare yahay oo uu qof sharaf la yahay calanka Soomaaliya lagu maamuusi lahaa tan iyo airportka loo suri lahaa way og yihiin inuu yahay qof halkaa u shaqeeya calooshii shaqaysta waa og yihiin mowqifka ummadda Soomaaliyeed ay ka taagan yihiin ku baabina Soomaa waxa loo soo dhiibaa sunta loo soo dhiibay annaka nalo ku baabina ma midda waa la baaraya laagajka Soomaa wax kale ma jiraan laagajkiisa waa la baaraya wuxuu wato iyo waxa la soo tugta la Soomaaliyaanta la socoto dhanba in la baaro anu taasaan rajeynaa ما والله باريا لاجتك والله باريا لاجتك وباريس صح وتكون صعنتها لاجتك والله باريا كان حد وحو تغي وحا لعل وهلكاس واهم غورياس وحو مري u tagay iyo wuxuu jaab ku shubto iyo wuxuu dawladda Soomaaliya ama maartay shacabka Soomaaliya ku baabiyo u socdaa soo xaqad ma oo soo noqdana beela waa maqan yahay markuu soo noqdo beela waa ku daayay waxa kale oo ku daayeen ninka la yiraahdo ninka ciidanka xoogga dalkaasna waa ku daayay haddana faragelin waxa lagu sameeynaa maxaan ku dhahay ii sheeg nis lagu sameeynaa markuu soo noqdo warqado badan waa turtuura weligii baa tuuro cid ka dhageysanaysa male cid uu maanta u taliyo oo uu xukumo ma jirto hadduu cid xukumo ama cid u taliyo qof shaqayn lahayd ma jirtaba kulligood albaabku ka wada saar lahaa laakiin ilaahay ma hadii dawlad yar oo saddex soo karaysan oo dulaalkanaga iyo rafasi noo rifay naftana halka qaaday marka ma inaan waxba nala ka helinba oo soo noqday waxa la socdo tugta la socotay asaga laagidkooda la baaro oo la adinku la baari ma galaysin magaalada aad weyn way dhacaysaa midaas nisa habaarta nisa waxa waay hadda waxa waay wali waxaan sheeko ku maqlay nisa inay ay marka information hay saxataa in nisa loo soo socdo oo imaaraad ku dhahan nisa hal kala jijibiyo maya nisa waxaas way ka adag tahay wayse ka fogaatay waxaas mari hore laga tagay in nisa la dhax galo in dawladda la dhax galo in bangiga la dhax galo waxaas oo dhan waa laga fogaaday waa laga tagay marka ninkii meelaha dhaxay iska ororto dawacada iska qaylqaylisa cidna u joojin mayso laagajkiisuna waa baalis ciidanka qaranka Soomaaliyeed diyaar bay u yihiin laagajkiisa inay baaraan sababtoo ah baastadiiba waa baareen waxa uu hadda soo qaadi doonana waa la baaraya hadda kulligo tuugtida isku dad hadda wax alla wixii tuugaha wax alla wixii ama maamul gobolka joogaan ama mucaarad ha ahaadaan kulligo wax isku dad imaaraad isku dad ما شاء الله هذه أد بعض ما هتصنتهاي إن عاوة وان كحسن ما تصمدنا والسلام أولا ما تصمدنا والسلام قوليسو إن شاء الله إن شعبك الصوماليات برنامج كأدو شارقرية والله نجمع مدها برنامج كعاوة نينك عن شارقريين نجمع مدها أدو شارقرية السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعد صوّع على التيفيك حسبك قبيلة جديد لا دجالنك قبيلة ده تاجر هذا مدحوين محمد عبد الله فرماجو صون نقشدي سموح شكيا كاجترا محمد عبد الله فرماجو وقامي الروح حبيب
بالملايين وحشك أي مجرو إسكالو ما تمسير كسومالي كتلين كدانسك عين مجرو والصورة في وقت قبيلة يوفسك عليسي سقيريسين تمقرت أنا وحنو باناي هدانا هذا لنت سوماليد أما برشة السوماليد قف حالة وبرشة ربيتها كتلين كدا وجعلك شعبك يوقفان كفرحين كرا ودلك هرمر جارسين كرا ومسؤولية دلك يدس كسانة فاهم كرا وأنو قم كرين رب الباهن وكله وأنو قم كرين شخص الواحد يقتدر الشيء وشقية هذا يصدق سنة بربر كسو جرني دولان باكو جراسني كل مدلني كل حبرني نور أدقي وقت حدق ما سوق عني أنا أقولنا هنا عشورتنا لا يقعدوا أنا أقولنا قولي هاي عشورتنا لا يقعدوا أنا أقولنا جوا هاي جراس عشورتنا لا يقعدوا حدنا أمن مال كلي ينكور دوان دول ما دبل جاري واي سوماليا كم سيجري سو نكاسونين كعدالة المجدو ونظهر نما أن كوين لكن ذلك إذا كسوماليا كوين دريم كرهوية السوماليا ما تعبرتوا يسوع دبن دريم كراني كدريرة أو ذلك يسب حوتك النقطة أو ذلك الشيء هذه ما قرأت صح هذا وين ومدة الصومالية هي ما أنت هدي أتقرن وإذا المسير كنا ماشي وكجدو يمحى عبد الله فرماج يا قامين روحي أو حلال waxaad ogaan doontaa 30 sano burburka ayna loo la sijaan qaadaysan waana ka shalleen doontaa masiirkiina dambe ma garatay cid dambe xalaal oo kursiga soo mari doonto isaga ka dhumaanta صح ma jiro ما جير madda Soomaaliyeed waxa leeyahay reer waxa yiraahdaa ma jiro reerku waa taariifo ilaahay baa inaga dhigay reerkiisu waa qabiil laakiin qabiiladu waxay u baahan tahay dalkay dadka ka weyn ma garatay صح wax ay macnaheedu leedahay ma jiro صح qabiilada iska daaya dalkiina fahma ina ciidina xukutiin dalkiina xukutiin dalkiina inuu barwaaqo gaaro dowladaha idin midka ah oo shalay inaga dambeeyay oo maanta wax noqday la jaan qaada oo adduunka meesha la marayo fahma ma garatay qabyaalada maxaad leedahay waxaan leeyahay xildhibaanada soo socda waxaan leeyahay war lacag waa cunis codkuna waa farmaajo ما شاء الله xaqiiqi Soomaali جيسي قرن ognahay war taariikhda ku xusaysa معاتري كسو علي lacag waa qaadasho lacag waa cunis codkuna waa maxamed cabdullaahi farmaajo gul iyo gobonnimo rag dhalay ha maqlaan xildhibaanada soo socda maxaad faraysaa marka xildhibaanada soo socda leedahay xildhibaanada waxaan leeyahay dad baa u dhaarateen rabitaanka iyo shacabka iyo mas'uuliyadda insaan fahma haddaad maanta codkiina maxamed cabdullaahi farmaajo sii weydaan ogaada hoolka markaa ka soo baxdaan xasan sheekh maxamuud iyo shariif iyo aad isku soo saadaan si dhacdooyinka hore ka dhici jiray waa ognahay hoolka ninka dooda oo ka hadla si fudud baa lagu cuni jiray wax badan oo nimankan ay dalka iyo dadka u dibdaabeeyeen baan garanaynaa adiga aan kula hadlayo sheekh shariif inuu shalay maxaakiimta ahaa mashakil kaaga jira maya inuu al-shabaab ahaa xitaa shakiga ma jiro inuu al-shabaab mashakil kaaga jira maya ma xataa inaas kuma hooyadood iyo aabood sida ay u taagan yihiin inuu bireeyay mashakil kaaga jira maya igama jiro mukhtaar roobo isagu inuu isku mid yihiin mashakil kaaga jira igama jiro adeer dowladda Soomaaliya ka jirta ay kaga faa'iideysanay waxay mudan yihiin in la daldalo waxa noocaas ma garat صح هذا وين ma dhici doonto waxyaalaha nooca inaan qaadan karno ma dhici doonto inaan masiirkayga ku aamino qof tuuga oo jiri ah oo dana shisheeyo u shaqeeyo oo huurayo u raray marat ma garat صح dal madax banaan baanay dowladnimada nagu weyn soo sano ku soo jirnay maanta aan ognahay ciidanka tayada iyo dhaqaalaha uu galiyay waxaan ognahay Soomaaliya wax qaladku u qabtay inuu mashaariic si xalaal u maamulayo inuu Soomaaliya ku wada weyn tahay waxaan leeyahay waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani fahan mas'afka iyo mas'uuliyadda aad haysid ummadda Soomaaliyeed baa waa gaar reer Puntland waxaan ognahay hoolka baarlamaanka Puntland waxa ka dhacay baan ognahay waxaan ognahay 8 xildhibaan in si fudud lagu baaciyay waxaan ognahay Boosaaso iyadoo si aan loogu wada jeedo inuu dab ku qabtay ma garatay oo burburiyay waxaan ognahay dekadii Boosaaso dhiib wali gacanta ku sii hayso waxaan ognahay xaaladaha adag ee Puntland ay ku jido waxaan ognahay nolosha kale in la maareyn waayo dadka bini'aadamka ah oo shacabka oo cashuurta ka qaadanaya ma garatay adeertaad joogtaa ku fashilantay Soomaalida ma hortay ka dhid mas'uulna ma tiid sharaf iyo maqaam aan ku haynana ma jiro xildhibaanada waxaan ugu celinayaa ugu baaqayaa dalkay dadka u naxa oo xishooda oo dad qada u wada noqonayna lacagtana cuna codkana farmaajo siiya ما شاء الله farmaajo lacagta noqotana isma dharin karaan hadday shacab iyo kalsooni noqoto bulshada meesha ka jooga oo ognahay madaxweynaha kaliya uu taariikh kale 5 sano soo maray Soomaaliya oo weel wada jecel yahay ما شاء الله قوليسو لعق waa cunis
codkuna waa farmaajo aad iyo aad baan kuu salaamaya rumaan la sheegin maahane dameer ratika raad qurxoon madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo 12 qaaqle ka sharaf badan ka karaamo badan ka haybad badan ka dadnimo badan waa soo celinaynaa wuuna soo noqonayaa shakina igama jiro hadduusan shaki kaaga jirin barnaamijka sheer garee like-ta iyo laafkana ha kala daalin soo follow garee barnaamijka waxaan idinka codsanayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee hadda i fiirsanaya walaalayaal inaad igu caawisaan subscribe inaad ii saartaan YouTube-ka hortiina maraya intaana igu caawiya dalka iyo dadkana waxaad ku caawisaa hal like iyo hal share ku caawi insha Allah ta'ala السلام عليكم عليكم السلام دعف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا شيء waxaad soo wacday TV-ga xisbiga qabyaaladiid la dagaalanka qabyaalada taageerada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo aan caawa ugu codeynayno yaa diidan ma dhici kartaa in qof kale dalka Soomaaliya maamulo yaa macnaha farmaajo soo noqoshadiisa ma wax diidi kara jira adoona soo gaabinaya insha Allah walaal dacar waa ku salaamay dadka Soomaaliyeed meesha ku jirana waa salaamay farmaajo dadku waa saddex meeli carcarafay taagan tahay oo meelay aado ma taqaan waa dadka shacabka oo maatada ah meelina waa dad shisheeye xambaarsan oo marabaal ah oo balcad oo aad u weyn oo waa warshadeenu soo saari jirtay shisheeye ku xambaarsan waxay xambaarsan yihiin Kenya Imaaraat iyo nimanka la yiraahdo maxay ahayd Djibouti ayay xambaarsan yihiin qolana waa qolada sideed oo kaleeta ah oo dalkoodu inuu hagaago oo dal noqdo rabta may fahanti صح marka qolada cadowga xambaarsan cadowga waxay la xambaarsan tahay saddexda dal cadowgoodu wuxuu xambaarsan yahay 33 boorso oo lacag ah صح may fahanti هذا وين cadowgii iyo 33 boorso oo lacag baa wada socda iyo saddex meelood marka loo dhigo dadka Soomaalida ah oo cadowga xambaarsan iyo 33 kaas boorso oo lacagta ah oo cadowgu sido may fahan صح ninkii dadku waxa weeye dadka lacagta xambaarsan iskuma jiraan qolo waxay rabtaa lacagta ay xambaarsan tahay inay xil ku hesho qolo ay ka qaadatana garan mayso صح qolana waxay rabtaa qolada dalka danta u ah inay meesha ka saadho qandaraaska saasayba ku soo qaadato صح qolana qandaraaska waxay ku soo qaadatay ciidamada Soomaaliya inay burburiso saddexdaa weeye looma dhaxeeyo صح qolada ciidanka Soomaaliya loo soo diray waxa ka madaxa Rooble صح agaasimihiisuna waa Xasan Sheekh صح may fahanti هذا وين qolada boorsooyinka xambaarsan ee iyadu xukunka raadinaysa qoladaas ciidamada loo soo diray waxa ku jira ninka hadda ciidamada looga dhigay wasiirka waxa ku jira ninka wasiirka arrimaha gudaha ah صح waa ilaa iyo 7 qof waxay sitaan 10 boorso 10 ka boorso ciidamada loo soo dhibay waxa ay ciidamada kala furfuro burburiye may fahanti صح tobanna waa 10 xukun doonaysa qolo ay ka qaataanna garan mayaan lacagtiina waa xambaarsan yihiin صح tobanna waa 10 inta farmaajo leh oo bayle leh oo baarlamaanka barkiis leh wadaniyiinta waa 10 loo soo diray may fahanti صح saddexda tobnaad weeye dadku صح marka laba tobnaad tobanna waa ciidamada burburintooda tobanna waa laynta iyo eryidda
dadka wadaniyiinta ee dalka wuxuu ahaa farmaajo madaxda u yahay inagu aynu ku jirno صح may fahanti هذا وين waxay ila tahay marka waagii horeeto oo sanadkii hore farmaajo irida wuxuu ka soo galay isagoo boorso faaruqa sita iyo hadda maanta boorsooyinku waa 35 boorso iyo 10 boorso baarlamaanka dhex taala صح 10kii boorso baarlamaanka waagaa dhex ooleyd waa la qaybsaday waa la cunay dalkana farmaajo loo doortay هذا وين maanta marka boorsooyinku intii waa ka badan yihiin waa 35 boorso 12ka ciidamada ku burburiya la yiri moogiye 23ka kale ama sidii sanadkii hore loo qaadan doonaa oo dalka waxa loo deyn doonaa ninka danta u ah may fahanti صح ama boorsooyinkaas la qaadan doonaa dalka Soomaaliyana sidiisii iyo qaraxiisii iyo hoogii iyo bi iyo idaaradii madow iyo badii oo la qaato ayaa lagu celin doonaa صح badeen waxay ku xayiran tahay maanta huura gowga uga taagan yahay ilaahay farmaajo meesha ka dhaqaajiyo صح ciidamadeena waxa loo burburinayaa oo waxa weeye waa inayan meesha dhaafin qabiil loo kala soco hadeerna been ku sheegi maayo ilaa 20 boorso lacag ka badan baa ciidamada ku maqan oo la yiraahdo lagu furfuro ما إن شاء الله تعالى العقو وقادشو عدنا وفرماتشو مركا أديكو سو كوبيا ماشي هذا وقدم بيسم حديه رايت وقت كاغ واد نافتي anigoo soo koobaya waxaan leeyahay dalka hala difaaco lacagtana hala cuno lacag waa cunis codkuna waa bixin iyo cidii dalka dan u ah ما شاء الله هذه أدبا نكون سلامنا سؤال نقاشة مدحوين محمد عبد الله فرماتشو كسو قيب قادو يب كورنتد بان نقول تكت ilaahay idankiis هذا كرر له هذا شعب الصوماليات كورنتدي ما تكتي مال والبا وودن كان دبا نكون قبنا هذا كورنتدي واي قاضي إن شاء الله تعالى هذه أدبا ندي سلامة يا كورنتدي بان نو سامح ويدي إسسون نقاشة عن إن شاء الله تعالى هذه إلهي هذا إسسون نقاشة عن كورنتدي بان نقول قاضي برنامج كأنه دير هذا الربي لكن كورنتدي بان نقول قاضي حافظ دورنا بيكا قاضي مركا وانا دي سلامة يا دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته